hair loss, timaha oo daata ama go'a. Tinta madaxa ku taalla waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarto ilaa iyo 100,000 oo tiro ah, waxaana si caadi ah maalin kasta kaaga gurma ama kaaga go'a ilaa iyo 100 xabbo. Balse gurmidda oo ah si tartiib tartiib ah ayaa keensanaysa in aadan dareemin. Timo go'iddu waxa ay noqon kartaa mid ku xaddidan madaxa, qaybo ka mid ah sida qaybta hore ama qaybta dambe. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid intaasi ka xeel dheer oo gaarsiisan dhammaan jirka meelihiisa ay timaha ka soo baxaan. Sababaha keena in timaha kaa bidaan, kaa go'aan ama kaa gurmaan waxaa ka mid ah sababo lala xiriiriyo dhaxalka amaba isbeddelo ku yimaada dheecaannada jirkaaga. Waxaa kaleeto oo sababahaas ka mid noqon kara xaalado caafimaad darri oo ku soo wajaha, waxa ayna noqon kartaa mid lala xiriiriyo da'da iyo gabowga. Haddii aan si gooni ah ugu nimaadno dadka da'da yar ama dhalinyarada ah ee aysan ahayn in ay tintu ka biddo ama ka go'do, maxaa ku keeni kara? Waxyaalaha ku keeni kara waxaa ka mid ah in dadka dhalinyarada ah ay tinta ka bidaahee xaaladaha loo yaqaan emotional stress, markaasi oo qofku uu la darso walwal joogto ah, kaasi oo keensada in timaha si xawli ah ay uga daataan, waxaana xaaladdaasi loo yaqaannaa telogen effluvium. Tinta ayaa soo raacda gacantaada marka aad madaxa mayranayso ama aad dhaqaydo, khaasatan marka aad isticmaalayso shaambada. Waxa kale oo ay tintu soo raacdaa shanlada aad ku shanlaysanayso, waxaana suuragal ah in aadan dareemin tinta kaa gurmayda ama kaa daadanayda muddo usbuucyo ama xitaa bilo ku siman. Xaaladdani ma ahan xaalad joogto ah oo waa la daweyn karaa waa ayna joogsan kartaa, waxa ayna ku xiran tahay isbeddelka nafsadeed ee kugu yimaada oo waxaa markeedii horeba sababay walwalka iyo xaaladaha kugu xeeran. Haddii xaaladahaasi ay isbeddelaan, waxaa caadi ku noqonaya timahaagii, waxaana joogsanaya go'itaankii ama gurmitaankii ay wadeen. Haddii aan fiirino waxyaalaha kale ee qofka da'da yar ku keeni kara in timuhu ay ka daataan, waxaa ka mid ah cunnooyinka aad cunayso oo aanan lahayn nafaqo ku filan oo jirkaagu uu ka faa'iideysto, sida tusaale ahaan in borotiinnada ku jira cuntadaada ay yar yihiin ama faytamiinada qaar ee jirkaaga u baahan yahay aysan cuntadaada ku jirin. Haddii aan si gooni ah u fiirino haweenka, waxyaalaha ku keena ee u qaska ah waxaa ka mid ah isticmaalka daawooyinka uurka looga hortago ee birth control pills-ka loo yaqaano oo lala xiriiriyo timo go'go'a. Sidoo kale, hooyada uurka leh waxaa lagu arki karaa timo go'go'. Waxaa kale oo sidoo kale imaan kara haddii hooyadu uurka ay dhasho oo uu cunug Ilaahay siiyo, waxaa la arkaa haweenka dhala in sometimes ay timaha ka go'aan. Marka aad la xiriirto xirfadle caafimaad ama dhakhtarkaaga, waxa uu ku weydiin doonaa sababaha tinta kaa guraya si uu u ogaado su'aalo ay ka mid yihiin qaabka ay tinta kaaga go'do, cuntada aad cuntid, iyo sidoo kale in aad mar dhow jiratay, iyagoo kuwaas ay yihiin waxyaalaha lala xiriirin karo. Jirrada daba dheeraata waxa ay keentaa timo go'go'a. Sidoo kale, sida aan qaybtii hore uga soo sheekeynay, faytamiinska qaarkood haddii ay cuntadaada ka maqan yihiin, waxaa kugu imaan kara in timuhu kaa daataan. Ugu dambeynna, si aad u heshid xal caafimaad, wuxuu dhakhtarkaaga ama xirfadlaha caafimaad ee markaasi aad la kulantay uu kuu sheegi doonaa hadba wadada ay tahay munaasibka in loo maro daaweynta go'go'a timahaaga, maadaama sababaha keenahay ay kala duwan yihiin. Haddii timo daadashadaadu ay la xiriirto in ay kugu yar yihiin faytamiinska qaarkood, waxa loo yaqaan vitamin deficiency, wuxuu dhakhtarkaagu kuu qori doonaa faytamiinada kaa maqan oo loo yaqaano vitamin supplements ama faytamiino ka baxsan cuntadaada oo daawo ahaan loo qaato ayuu kuu qori doonaa. Haddii sababta tin daadashadaada keentay ay tahay infekshannada sida kuwa loo yaqaan fungal infections
oo keena in timuhu gurmaan, dhakhtarkaagu wuxuu kuu qori doonaa daawooyinka la diriira fangaska ee loo yaqaan anti-fungus drugs, kuwaasi oo noqon kara kuwo afka laga qaato ama kuwo loo isticmaalo sida shaambada ama kareemka oo madaxa iyo meeshii markaas ay saameeyeen la mariyo. Ugu dambeynna, haddii loo baahdo, wuxuu xirfadlaha caafimaad ee aad u tagtay kula wadaagi karaa in ay jirto baahi loo qabo in tinta lagu beero oo loo yaqaan hair transplant. Mawduuceennii maantana intaas ayaan kusoo koobaynaa, waanaad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddii aad ka faa'iiday, la wadaag asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaan. Mahadsanid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.